السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسلو كورساقون channel iyo كورساقون.com labadaba magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan muuqaalkan maanta waxaan ku baran doonaa Mmet ayaan ku baran doonaa Mmet wax kale ma aha waa tool ama waa plugin ama waa extension la socda text editorska qaarkood sida VS Code iyo Sublime kuwa uu la soconaad plugin ahaan ugu soo darsan kartaa ama extension ahaan ugu soo darsan karto sida Notepad++ oo kale aad ku soo dari karto marka muxuu ku ogolaanayaa wuxuu kor u qaadayaa speedka aad code-ka ku qori lahayd wuxuu ku ogolaanayaa inaad xarfo yar qorto ama snippets yar aad qorto dhowr xaraf and then aad taabato oo ku dhameystiro qoraalka marka tusaale ahaan inta yar buu qofkani qoray markuu inta yar qoray tab ayuu taabanaya markuu taabto wuxuu sameyn doonaa elements badan intaas oo dhan ayuu sameeyay waxaas oo dhan ayuu sameeyay hadda isagu line yar oo kaliya ayuu qofkaasi qoray marka kan ayaynu baran doonaa qaabka loo isticmaalo waxaan hore u sheegay inuu la socdo VS Code by default text editor-ka ugu caansan ee imika la isticmaalana waa VS Code sidaa darteed waxaanu ku samayn doonaa muuqaalkeenan VS Code inagoo isticmaalana Mmet faylashan aan ku isticmaali doono practicalka waxaad kala soo degi doontaa muuqaalkan aad daawanayso hoostiisa waxaadna ku samayn doontaa markaa practicalka okay marka koowaad waxaynu ka hadli doonaa basicska and then marba marka dambaysa aynu si adkayn doonaa oo aynu qayb advanced ah aynu ka gaari doonaa okay marka u horeysa waxaanu arki doonaa Mmet waxyaabaha inoo qabato waxa kamid ah auto closing tag inay taagaga si automatic ay noogu close garayso waliba ay text editorska qaarkood ama badankooda inoo sameeyaan tusaale ahaan haddaan ku samaysto h1 oo aan soo xidho waxa arkaysaa closing tag isaga automatic oo sameynaya waxaan oran karnaa haddaan if idhaahdo and then aan soo xidho opening tag-ga waxa arkaysaa inuu closing-kina isaga automatic iyagu sameynayo marka taasi waa iska simple taasi wax weyn ma sii aha walow ay mararka qaarkood muhiim tahay waxaan u gudbanaa qaybta labaad oo ah shortcutska qaabka loo isticmaalo waxa jira elements ama HTML elements qoraalkooda ama inta xarafiga kooban yihiin uu dheer yahay tusaale ahaan text area header oo kale way yar badan yihiin section oo kale kuwaas oo kale waxaad qoraysaa laba xaraf ama ugu badnaan saddex xaraf and then tab ayaa taabanaysaa isaga inta kale ku dhameystiraya tusaale ahaan block quote oo kale BL oo kaliya ayaad qoraysaa and then tab ayaa taabanaysaa isaga ayaa ku dhameystiraya header oo kale HDR ayaad qoraysaa tab ayaa taabanaysaa isaga ayaa ku dhameystiraya waxaad doonaysaa button BTN ayaa qoraysaa and then tab ayaa taabanaysaa isaga ayaa ku dhameystiraya footer oo kale FTR ayaa taabanaysaa tab isaga ayaa ku dhameystiraya art oo kale waa article then tab ayaa taaban kartaa article ayaa ku sameynaya section oo kale markaad doonayso SE kaliya aad qori and then tab ayaa taabani isaga ayaa ku dhameystiri doona waxaad doonaysaa maybe span oo kale SP kaliya ayaad qori SP and then tab ayaa taabani isaga ayaa ku dhameystiri option oo kale OP ayaad qori and then tab ayaa taabani isaga ayaa ku dhameystiri doona waxaad doonaysaa select oo kale SEL ayaad qori and then tab ayaa taabani isaga ayaa ku dhameystiri doona table baad doonaysaa T kaliya ayaad qori and then tab ayaa taabani isaga ayaa ku dhameystiri doona waxaad doonaysaa table body T B ayaad qori and then tab ayaa taabani isaga ayaa ku dhameystiri doona waxaad doonaysaa text area oo kale TAR ayaad qori and then tab ayaa taabani isaga ayaa ku dhameystiri marka intaas oo dhan imika haddaan caadi u qoris idhaahdo one by one waqti badan ayay qaadan lahayd laakiin inagoo ka faa'iideysanna Mmet ayaan waxaan oo dhan qornay markaad qoraysana markaan idhaahdo tusaale ahaan imika HDR oo kale inay header tahay waxaad arkaysaa halkan ayaad preview-ga arki kartaa waxaan isticmaalaysaa Mmet abbreviation keer baa isticmaali ama snippet kan yar then tab ayaa taabani header ayay markaa u ku qori marka taasi waa mid intan un maaha waan ku siin doonaa source-ka iyo cheat sheet aad isticmaali doonto way ka badan yihiin intan waxyaabo badan oo kale ayaad ku samayn doontaa okay waan ka gudbanaa qaybta waxaan u gudbanaa class nameska ama sida loo isticmaalo classeska sida loo isticmaalo waxaan doonaynaa inaan samayno halkan maybe h1 and then aan idhaahno my header oo kale waxaan odhanaa markaa dot baan odhanaa marka waxaad qoraysaa elementka aad doonaysid waa h1 oo kale and then dot and then classkii my main header oo kale ay qoraysaa and then preview-ga halkan aad ka sii arki karaysaa waxa kuu soo baxaya output-ka tab ayaa taabanaysaa maxay noo samaysmay intaas ayay noo samaysmay div class main header waxaas oo dhan si manual ah ayaad qori lahayd and then waqti bay ka qaadan lahayd just halkaad imika ka leedahay
dot ama h1 and then dot my header oo kale aad ka leedahay and then aad taabanayso element kasta html element kasta aad ku isticmaali kartaa tusaale ahaan div oo kale aad oran kartaa div dot and then main oo kale sida waad samayn kartaa sidoo kale divka isagu waa ka duwan yahay dot kaliya ayaad qori kartaa and then dot markaad qorto waxaad arkaysaa inuu div kaaga dhigay and then class baad raacin kartaa waxaad oran kartaa main div oo kale and then taaban kartaa waxaad aragtaa inuu kuu sameeyey div classkiisu yahay main div just inagu inta yar uma qornay dotna aan ku horeysiinay marka qaabkaasi waa qaabka elementiska classeska loogu daro ama element class wata loo sameeyo waxaan doonaynaa ka soo qaad button kaas oo wata class la yiraahdo submit oo kale waxaan qoranaa btn on hore soo aragnay and then waxaan qoranaa dot oo class macnaheedu yahay and then class name-kii oo submit and then taabanaya isaga ayaa i dhamaystiray button class-kii and then submit intaas oo dhan ayaa marka aad arkaysaa inuu inoo fudaydiyey oo si degdeg u qori karno id-guna waa la mid halkii aynu dot ka isticmaalnay class-ka un baynu isagana hash ka isticmaalnaa tusaale ahaan waxaan odhan karnaa header and then hash ama headerka markaan qorno hdr baan iska isticmaali karnaa headerna waad qori kartaa waa caadi hdr and then hash waxaad odhan kartaa my header and then ayaan taaban karnaa waxaad aragtaa inuu noo sameeyey header and then id uu siiyey my header marka halkii aynu dhotka ka isticmaalanay classka unbaad isagana hash ka isticmaalaysaa sidoo kale waxaad odhan kartaa hash waxaad odhan kartaa main oo kale and then ayaad taaban kartaa wuxuu noo sameeyey div id-giisu yahay main elementska kale oo dhan saasaad u isticmaali kartaa just maxaad qoraysaa hash ama waxaad qoraysaa elementka marka koobaad tusaale ahaan span input yani elementka doonayso html tag doonayso and then hash baad qoraysaa and then name-kii id-ga qaabkaas ayuu marka ugu wadaya waxaa kaloo iyadna jirta sideed content aad ugu dari karaysaa content sideed ugu dari karaysaa content si aad ugu darto ama element content wata aad doonaysid markaad doonaysid waxaad samaynaysaa elementkii baad qoraysaa tusaale ahaan waxaad doonaysaa paragraph p tag baan qoray p tag waxaan doonayaa inaan qoraal ku dhex qorno waxaad samaynaysaa markaa curly brace baad qoraysaa curly brace markaad qorto my content ama contentkii baad ku qoraysaa and then baad taabanaysaa halkan wuxuu kugu qoray paragraph contentkiina uu kugu dhex daray waxaan samayn karnaa halkan kaba soo qaad div baan samayn karnaa and then divka waxaan siin karnaa classkiisa waxaan odhan karnaa main box oo kale and then waxaan sii dhex gelin karnaa marka contentkaasi waxa weeyaan maybe waa lorem ipsum lorem baan iska taabtay ama lorem baan qoray and then ayaan idhi qoraalka khayr buu ku daray hadday noomu generate gareyn wax lorem ipsum just laakiin qoraalkii aan qoray ayaabuu noo soo dhex geliyey marka qaabkaasna waa loo isticmaalaa markaad doonaysa inaad content ku darto elementka qor then curly brace qor markaad curly brace qorto contentkii qor ama qoraalkii waxaad qoraysay and then soo xidh curly brace-ka and that's it waa markaad content inaad ku darto aad doonaysid okay waxaynu ku xigsiinay nestingku waa element ku hoos jira ama waa shay ku hoos jira tusaale ahaan waxaan haysanaa halkan kaba soo qaad div baan haysanaa kaba soo qaad waa main div oo kale waa mainka waxay nagu hoos jira ka soo qaad section bay nagu hoos jira section and this is the parent and this is the child marka waa la nest gareey child kani wuxuu ku hoos jira ama section kani mainka marka qaabkeed sano kale ku samayn kartaa waxaad ku samayn kartaa adigoo isticmaalaya calaamadan angle bracketka adigoo isticmaalaya waxaad samaynaysaa marka ama calaamada greater than adigoo isticmaalaya waxaan sameynaynaa tusaale ahaan element div oo kale ama ul unordered list macnaheedu weeyaan waxa ku hoos jira li marka waxay noo samaysmi doona list item oo unordered list oo ku hoos jira waxay noo samaysmi doona marka unordered list ku hoos jiro list item haddaan taabto waxay noo samaysmay ul uu ku hoos jiro li uu ku hoos jiro waadna badin kartaa waxaad oran kartaa maybe ol ama ordered list ama div baad oran kartaa div waxaad oran karto list and then waxay nagu hoos jira unordered list ama ol oo ordered list ah waxay nagu hoos jira list items waxa ku sii hoos jira a tag-ana waxay nagu sii jira qoraal maybe kaba soo qaad click me oo kale and then
taabayaan taabtay waxay noo samaysmay list maxaa ku hoos jira ol maxaa ku hoos jira li maxaa ku hoos jira a tag marka waa nesting weeyaan si aad nesting u samayso parentka qor elementka and then waxaad qortaa markaa angle bracket and then child elementka waad qori doontaa hadduu child kale sii leeyahay waxaad sii qori kartaa angle bracket kale and then elementka kale ayaad qori kartaa okay kanina wuxuu la mid yahay ka hor aan kusoo sameynay kan noogu qorana ka hor buu la mid yahay tusaale waxaan doonaynaa maybe waxaan doonaynaa nav oo nav header baan doonaynaa ka soo qaad header and then waxay noogu hoos jira headerka waxaan isticmaalnaa hdr headerka waxay noogu hoos jira nav navigationka waxay noogu hoos jira unordered list oo kale unordered listka waxay noogu sii hoos jira list item kala duwan list item kastana waxay noogu sii hoos jira a tagana waxaanu siin karnaa content oo ah kaba soo qaad item 1 oo kale and then taabayaan taaban karnaa and then waa kan noo sameeyay parent and then this wuxuu child u yahay kanna wuxuu child u yahay kan sidaas ay markaa isku wada hoos jiraan parentka ugu sarreeya waa kani wuxuu ku hoos nest garaysan yahay kan and then kana ku sii hoos jira kana ku sii hoos jira marka qaabkaas ayaa nestingkana loo sameeyaa okay waxay nagu xiga multiplication markaa isticmaalayso calaamadda multiplicationka doonayso inaynu kuwan oo kala badino ayaan doonanaa marka hore waxaan soo aragnay inaynu samaynay kaba soo qaad waxaan sameynaa ul ama ol oo ordered list ah amaba ka soo qaad waxaynu sameynaa diffka waxaan soo hoosgelinaynaa unordered listka waxaan sii hoosgelinaa list itemskana waxaan doonaynaa in aynu sii hoosgelino inaynu ka dhigno 3 midba then calaamadda isku dhufashada isticmaali kartaa and then 3 oo kale ama 2 oo kale number baad isticmaali kartaa ama haddaan si guud ahaaneed kuu tuso waxaan sameynaynaa li oo list item times 3 baan idhi waxay noo samayn doonaa markaa 3 list item taabayaan taabtay 3 li ayuu noo samay marka calaamadda timeska haddaad isticmaasho wuxuu ka dhigayaa numberkaad ka dambaysiiso ayuu ku dhufanayaa then elementkaad markaa meesha gelisay inta tirada soo baxda ayaabuu kaaga dhigi doonaa ama tirada marba ku dhufato waxaan samayn karnaa ul ka waxay noogu hoos jira list item kasta waxay noogu soo hoos jira list item kasta wuxuu ka kooban yahay ama ul kasta waxay noogu soo hoos jira amaba waxaan samayn karnaa ul kaasi waa 2 ul baan samayn karnaa waxay noogu soo hoos jira list item kastana waxa uu kasii kooban yahay 3 mid kastana waxay noogu hoos jira a tag marka waxay noo samayn doonaa 2 unordered list mid kastana waxay noogu sii hoos jiri doonaa list items oo ka kooban 3 mid kastana waxay noogu sii hoos jira list item kastana a tag ay noogu sii hoos jiri doonaa haddaan taabto markaa waxaad arkaysaa inuu noo sameeyay 2 ul oo ka koobaad ka labaadna waa kan mid kasta inuu noo sii hoos geliyay 3 list item mid kastana inuu noo sii hoos geliyay markaa a tags inoo sii hoos geliyay marka intaasoo dhan intaan wax badan ka qori lahayn saas maxay naga filan entire baan qornay and then maxaan taabanay intaas ayay noo qormatay okay marka waa wax weyn weeyaan aad bay muhiim u tahay waxa kale aan samayn karnaa marka waa kan qaabku just waa qaabka kan ugu qoran maxaad samaynaysaa waxaad qoraysaa parentka ka koobaad oo kan isla soo aragnay qaybtanina waa qaybtan weeyaan parentka qortay and then childkii waxaad u dhufatay markaa inta numberka doonayso content ma sii raacin karnaa waxaan oran karnaa ul li bay noogu hoos jira li kasta waxaynu sii raacin karnaa content waxaan qoranaa markaa curly brace waxaan oran karnaa item 1 oo kale and then taabayaan taaban karaa iminka xabad bay nooga dhigay laakiin waxaynu kusii dhifan doonaa maybe waxaynu kusii dhifan doonaa waxaan doonaa ul and then li times 3 mid kasta ay noqdo ama 2 mid ama 4 midba mid kastana waxaan ku sii daranaa item 1 oo kale taabayaan taabanana waxay noo sameeyay ul waxay noogu hoos jira 4 li mid kastana contentkii aan raacinay ayuu noogu soo saaray contentkan increment ma ku samayn karnaa oo mid kordhaya ma ka dhigi karnaa kani waa 1 kan 2 3 qaabkaas oo kale ma ka dhigi karnaa ha waan ka dhigi karnaa
maybe ol baan idhi order list and then waxaan hoos geliyay li oo list item waxaan ku dhuftay 3 and then waxaan idhi marka waxaad ii soo hoos gelisaa content oo item ama list item and then halkan one markii hore ka gelinayay waxaan ka gelinay calaamadda dollar sign-ka and then tab ayaan taabanaya wuxuu ku sameynaya marka list item 1 item 2 item 3 isaga ayaa marka ku dhufanaya index-ku kugu dhufanaya increment ayuu sameynaya okay waxaan ku xigsiinanaa kan ayaan gudbanaa siblings waa maxay waxaan soo aragnay parent iyo child parent-ku kani wuxuu parent u yahay kuwan ayuu parent u yahay list item kan iyo list item kana waa walaalo baynu oran karnaa ama waa siblings baynu oran karnaa waa walaalo maadaama ay isku level yihiin marka sideed u sameyn kartaa kuwa qaabkan oo kale ama siblings waxaan doonaynaa ka soo qaadanaa sameeyno diff aan idhaahno main and then aan hoos gelino ama aan idhaahno my diff aan hoos gelino marka kaba soo qaad form ama aan soo hoos gelino paragraph iyo button si aad u isticmaasho siblingska waxaad isticmaashaa plus paragraphkan iyo buttonkani plus baan u dhaxaysiiyay wuxuu sameyn doonaa diff classkiisu yahay my diff wuxuu sii hoos gelin doonaa paragraph iyo button paragraphkan content baan sii raacin karaa oo waxaan oran karaa this is just a demo and then waxaan sameyn karaa tab waxaad aragtaa in halkan igu soo daray markaa diff paragraph uu qoraalkii raaciyay iyo button marka labadani waa siblings si aan labadan u sameyno maxaan isticmaalnay plus baan isticmaalnay marka maxaad qoraysaa parent elementka and then waxaad qoraysaa marka calaamadan angle bracketka waxaad qoraysaa siblinga koobaad ama midka koobaad elementka koobaad plus dan ka labaad plus ka saddexaad plus ka afraad sidaas ayaad u wadaysaa waa markay kala duwan yihiin hadday isku mid yihiin times baad isticmaali karaysaa okay marka just maxaan sameeyay kaba soo qaad nav baan idhi ama header baan idhi header oo isticmaali karo hdr headerkan waxay ugu hoos jiraa kaba soo qaad diff la yidhaahdo logo classkiisu looga yahay plus baan odhan karaa nav oo navigationkiya plus menu waxaan odhan karnaa menu button ama button btn content-ka igu sii qoran uu yahay menu oo wata classka la yidhaahdo dot menu btn marka muxuu samayn doonaa header elementka wuxuu isii dhex gelin doonaa diff la yidhaahdo logo maadaama dot isticmaalay diff wuxuu dhex gelin doonaa logo la yidhaahdo classkiisa wuxuu isii dhex gelin doonaa oo ay labadan ayuu sibling ka dhigi doonaa nav buu ka dambaysiin doonaa marka loogada navka wuxuu kasii dambaysiin doonaa button classkiisu yahay menu button qoraalka ku dhex qorna uu yahay menu and then tab ayaan taabani wuxuu sameeyay marka headerkii muxuu sii dhex geliyay diff classkiisu yahay logo maxaa ka dambeeya nav maxaa ka sii dambeeya button qoraalka ku dhex qorna uu yahay menu classkiisu yahayna menu button okay marka qaabkaasi waa qaabka loo isticmaalo siblings marka doonayso inaad samayso qaabkana marka doonayso elements isku mid ah inaad dhowr jeer soo celiso inaad multiplication ku sameynayso waayahay waxaan u gudbi doonaa attributeska si loo isticmaalo attributeska kala duwan sidee ayaa loogu isticmaalaa emet tusaale ahaan waxaan doonaynaa image element img baan iska qoranaa and then waxaan doonaynaa elementkaasi inuu attribute lahaado si aad marka attribute ugu raaciso waxaad isticmaalaysaa syntagan waxaad qoraysaa qawskan markaad qorto waxaad raacinaysaa attribute-ka magaciisii and then waxaad qoraysaa equal and then waxaad qoraysaa marka quotes ugu dambeyntiina value-gi waxaan doonaynaa image-kan in aan source-kiisa ka dhigno mid aynu inagu soo gelino marka u horeysan samaynano marka waxaan samaynaynaa img and then attribute-ku waa src oo source waxaan odhanaynaa kaba soo qaad wuxuu yaala sawirkaasi imageska slash waxaana weeyaan image1.jpeg oo kale ama jpg tab ayaan taabanayaa wuxuu igu soo daray image attribute wuxuu raacay source la yidhaahdo oo la yidhaahdo images waxaan doonaynaa paragraph
Paragraphka waxaan doonaynaa inaan raacino attribute. waxaan qornaa marka attribute-kaasi waa title. waxaan doonaynaa inaan idhaahno ka soo qaad main ama student name baan idhiba. wuxuu samayn doonaa paragraph. Paragraphka wuxuu siin doonaa marka attribute-ka title. wuxuu raacin doonaa student name iyo ku dhex qori doonaa attribute-ka. tab ayaan idhi. wuxuu sameeyay paragraph. attribute-ka title buu raaciyay and then raaciyay student name oo kale ayuu raaciyay. waxaad ugu qori kartaa. marka qaabkaasina waa qaabka attributes kala duwanaa loogu isticmaalo weeyaan. ugu dambeynta waxaan u tagi doonaa formamka. waxa aan dhamayn karana maaha haddaynu maanta ms dhamaysna laahno, laakiin just siday muhiim u tahay un baan arkanaa. inahana waa iska muhiim aan aragnay iminka. waxa kalood markaa samayn doonta waxaan ku siin doonaa source aad ka raacdo oo kumanyaal short code ay kugu qoran yihiin oo aad raaci doonto. waxaan doonaynaa formkaasoo kale markaan qorno form on tab nidhaahno wuxuu inoo samaynayaa form. qaabkan inagu qoraya form. waa just markaan idhaahdo form. haddaan doonayo inaan method raaciyo ka waran, waxaan qorayaa form and then methodkaan doonaya waa get iyo post baa jira. waxaan odhanayaa marka get oo kale and then tab ayaan odhanayaa. wuxuu sameeyay form. actionkiisu waa maran yahay. methodkiisuna waa get way. waxaan doonaynaa mid kale oo methodkiisu yahay post oo kale. waxaan qoraynaa form and then post baan qoraynaa. column intaad qorto ayaad post qoraysaa and then tab ayaa taabanaysaa. isaga ayaa ku dhamaystiraya. waxaad doonaysaa inputskii kala duwanaa. waxaan doonaynaa input baan qornay. tabekiisa haddaan tab idhaahdo text buu by default ka dhigayaa. haddaan doonayna markaa inaynu tabekiisa bedelno waxaad qori kartaa input and then waxaad oran kartaa waa submit column intaad tidhaahdo and then tab ayaad oran kartaa input tabekiisu yahay maxaa kuu soo baxay submit. waxaan kaloo samayn karnaa input and then column email baan oran karnaa and then tab ayaan oran karnaa. waxay noo samaysnaa input tabekiisu yahay email. marka maxaad qoraysaa input and then column and then tabeka aad doonayso valuegiisi. waxaan doonaynaa kaba soo qaad input. waxaan doonaynaa tabekiisuna in uu inoo noqdo maybe color oo kale and then okay input tabekiisu yahay color ayaa inoo soo baxay. marka qaabkaas ayaa loo sameeyaa. way badan yihiin. haddaynu maanta oo dhan ka baxaysnaano kama baxi karno. waxaan u gudbi doonaa wax yar qaybta css-ka ayaynu isla arki doonaa. waxoogaa qaybta css-ka ayaynu markaa aynu u gudbi doonaa. aynu ku horeyno css-ka. waxaad tegaysaa faylka labaad ee css-ka ah ee kula socda. markaad soo download garaysato waxaynu ka bilaabi doonaa colorska. colorska ayaynu ka bilaabi doonaa. waxaan samaystay universal selector and then halkan ayaynu ku dhex qori doonaa wixii marka aynu practice samaynano. okay colorska si aad color u qorto caadiyan waxaad qortaa color and then column and then value-gi maybe red oo kale. si aad taa u samayso waxaad samayn kartaa si kaliya ayaad qori kartaa and then column and then value-gi red oo kale. tab ayaad taaban kartaa. isaga ayaa ku dhamaystiraya. waxaad doonaysaa inaad qorto kaba soo qaad background beige baad qori kartaa and then waxaad qori kartaa maybe blue oo kale. tab ayaad taaban kartaa. background muxuu kaaga dhigay blue. waana badan yihiin. waxaad samayn kartaa maybe beige oo background ah. waxaad samayn kartaa marka waxaad oran kartaa hash fa and then tab baad taaban kartaa. fa baan isticmaalnay and then isaga ayaa fa inoo soo celiyo inoo dhamaystiray 6dii number ama 6dii value ee uu ka koobnaa hex colorkani. okay taasi waa colorska iyo background colorska. waxaan u gudbi doonaa position ko kale ayaa loo isticmaalaa position si aad isticmaasho bo qor and then column qor. maybe waxaad doonaysaa absolute a baad qoraysaa and then tab hadaad taabato position absolute baa ku qormaya. waxaad doonaysaa inaad tidhaahdo position and then relative oranaysaa bo column and then r keliya aad qoraysaa tab position relative. waxaad doonaysaa position static inaad tidhaahdo waxaad qoraysaa bo and then column s baad qoraysaa tab ayaad taabanaysaa position static ayaa markaa meesha kaaga soo baxaya. waxaa kaloo aan raacin karnaa top bottom marka position kale la isticmaalayo. waxaad samayn kartaa t and then waxaad oran kartaa topka value laga soo gaayo maybe 10 by default waa pixel. waxaad oran kartaa sidoo kale em wuxuu noqonayaa marka topka ka soo goo 10 em oo kale. waxaad oran kartaa bottomka b oo kaliyaata and then waxaad oran kartaa 5 oo kale. 5 by default waa pixel. waxaad oran karnaa right ka soo goo right r baad qoraysaa and then waxaad qoraysaa column. waxaad
waxaad maybe 50 pixel oo kale ama 50 kaliya qoraysaa then tab ayaa taabanaysaa isaga ayaa ku dhamaystiraya marka qaabkaas ayaa loo isticmaalaa top waa t kaliya qoraysaa and then column bottom waa b kaliya right waa r kaliya leftna waa l kaliya waxaad qoraysaa l and then waxaad qoraysaa value 1 ama 3 rem oo kale ayaan doonaynaa and then waa qaabkaas ayaa loo isticmaalaa float-ka sida iyagana loo sameeyaa float si aad u isticmaasho fl baad qoraysaa float waxaad oran kartaa marka value baad gelin kartaa float waxaad oran kartaa right ka ha tago and then float right waxaad oran kartaa fl n oo non float non ah waxaad oran kartaa fl waxaad oran kartaa maybe left fl maxaa nidhi marka l and then float left ayuu noqonayaa clear baan doonayaa clear oo kale cl kaliya qoraysaa and then waxaad oran kartaa marka clear left oo kaliya waxaan karnaa cl oo clear right oo kaliya waxaan karnaa cl waxaan karnaa p oo both ah waxaan karnaa clear none oo kale waxaan sameynaa cl n baan taaban karaa clear none ayaa markaa uu igu soo daraya okay waxaan u gudbanaa display-ga qaabkeedu sameynaysa iyagana d kaliya tad qoraysaa d for display haddaan taabto by default block buu ka dhigayaa sidoo kale haddaan idhaahdo d and then aan idhaahdo b waa display block waa la mid d haddaan taabto oo aan i idhaahdo waa inline display inline waxaan kaloo samayn karnaa d i b ayaan odhan karaa oo display inline block ah waxaan odhan karaa display flex oo kale display d baan qori karaa column f baan qori karaa waxaan kaloo samayn karaa d waxaan doonayaa grid oo kale inaan ka dhigo g baan qorayaa markaa taabaan taabanaya wuxuu samaynayaa markaa intaas ayuu iminka ii qoray okay marginkiisa aad samaynaysaa margin iyo padding waa la isticmaalaa buttonka m kaliya aad qoraysaa margin markaad doonaysid and then column baad taabanaysaa and then waxaad qoraysaa value-gi waa margin all markaad doonayso 10 oo kale 10 pixel ama 10 rem oo kale wuxuu samaynayaa margin 10 rem margin top baad doonaysaa mt baad qoraysaa and then value-gi mt baad qortay and then value-gi waa 10 pixel oo kale and then tab baad taabanaysaa waxaad doonaysaa margin right m iyo waxaad qoraysaa r margin right buu kaaga dhigayaa waxaa kaloo doonaysaa kasoo qaad m margin left waxaan doonaynaa 10 oo kale isagana waxaan samayn karnaa margin bottom mb baad qoraysaa waxaad qoraysaa sidoo kale margin top iyagoon aragnay margin top qaabkaas ayaa marginkiina loo samaynaya maxaad qoraysaa m kaliya ama mt oo margin top ah ml oo margin left ah mr oo margin right mb oo margin bottom ah then column baad raacinaysaa and then value-gi baad raacinaysaa haddaad doonayso rem oo kale ama em waad raacinaysaa haddaad default ahaan ku daynaysana waa pixel okay waxay noogu xigaa paddingkuna marginkan buu lamid yahay halkan ka isticmaalanay m unbaad isaga p ka isticmaalaysaa p unbaad ka isticmaalaysaa marka isaga haddaan p idhaahdo p10 and then waa padding oo 10 pixel ah waxaan samayn karaa PR oo padding right ah waxaan odhan karnaa waa 10 em and then waa marka isaga waan ka gudbi doonaa isagana waa tijaabin doontaa PR oo kale waa padding right PL waa padding left B waxa weeyaan marka waa padding bottom okay borderkii baan sheegnaa borderka see loo isticmaalaa isaga borderka waxaad isticmaali kartaa just border baad qoraysaa and then column value-gi maybe 10 pixel oo kale qaabka waa samayn kartaa marka taas oo wada qoraal caadi ah laakiin border right oo kale marka doonayso BDR baad qoraysaa oo border right ah and then value-ga doonaysaa waa 10 pixel oo kale ayaad oran kartaa markaad qorto ama 10 kaliya markaad qorto tab ayaa taabanaysaa maadaama pixel uu by default yahay waxaad oran kartaa border top and then tab ayaad oran kartaa waxaad oran kartaa markaad doonayso border right oo kale waan aragnay border left BDL baad oran kartaa waxaad oran kartaa 10 em oo kale and then tab baad oran kartaa border bottom baad sidoo kale isticmaali kartaa waa BDB and then value baad qori kartaa sidoo kale border style baad oran kartaa BDL ama BDS oo border style border style waxaad oran kartaa maybe ha noqdo solid s baad oran kartaa tab baad oran kartaa border style kina muxuu ka dhigay solid ama solid BDS baad oran kartaa oo border style waxaad oran kartaa P oo double ama BDS baad oran kartaa waxaad oran kartaa DA oo ah dashed
sidaas ayaad ku samayn kartaa border color markaad doonayso BDC baad qoraysaa and then waxaad kartaa red oo kale border color red ayuu yidhi marka waxaan oo dhan waan ku siin doonaa oo cheat sheetka ayaan ay kula socdaan tagaskii baan tagnaa tagas alignmentka TE baad iska qoraysaa and then dhinacaad ku align garaynaysaa TA haddaan qoro waa tagas align by defaultna waa left waxaan oran karaa sidoo kale TA and then L baan qori karaa oo tagas align left ya TA and then R baan qori karaa oo tagas align right waxaan oran karaa TA and then J oo justifier waxaan oran karnaa decoration kan raacin karnaa oo TD tagas decoration and then waa none by default waxaan oran karnaa TD and then waxaan oran karnaa N oo ah none waxaan oran karnaa sidoo kale TD waxaan oran karnaa U oo ah underline waxaan oran karnaa TD oo ah O oo offline waxaan oran karnaa TD oo ah L oo ah line through oo line la dhex mariyo ah okay qaabkaadna waxaad ku isticmaali kartaa text decoration-ka marka styleska propertieska iyo values-ku aad bay u badan yihiin CSS-ka maanta oo dhan haddaan wada isdhaahno kama bixi karno font-ka ayaan kusoo gabagabayn doonaa and then waxaan tusi doonaa halkaad ka heli doonto dhammaan information-kan FF baan qori doonaa oo font family u taagan waxaan oran karnaa S oo serif ah waxaan oran karnaa font family waxaan oran karnaa double S oo sans serif ah waxaan oran karnaa font family oo C baan oran karnaa oo cursive ah waxaan oran karnaa font width-ka ama font weight-ka waxaan oran karnaa bold oo font weight and then B bold buu ka dhigi karaa waxaan oran karnaa font weight-ka waxaan oran karnaa maybe normal oo N ah qaabkaana waan samayn karnaa waxaan sidoo kale samayn karnaa font weight and then value baan gelin karnaa tusaale ahaan 100 oo kale and then tab ayaan taaban karnaa font style-ka FS baan qori karnaa and then waxaan oran karnaa markaa haddaan tab idhaahdo italic by default waxaan oran karnaa font style and then N baan oran karnaa waa normal qaabkaas ayaan samayn karnaa ama font style I oo again italiga ama waxaan oran karnaa font S and then O and then waka marka font-kana qaabkaas ayaa u samayn karaysaa okay marka font-kaas ayaan ku joojinanaa muuqaalka ayaa intaa wixii ka badan dheeraanaya just waxaan tusi doonaa halkaad ka heli doontaan macluumaadka oo faahfaahsan ama cheat sheet-ka muuqaalkana daawanayso hoostiisa linkiga ku dhufo and then wuxuu ku geyn doonaa daaqadan ayuu ku keeni doonaa marka waa download garaysan kartaa cheat sheet-kan waxaad halkan aragtaa marka dhammaan waxyaabihii sida child u isticmaali lahayd siblingskii grouping saad u samayn lahayd dhammaan waxaan meynaan wada arag qaybo ka mid ayaynu soo aragnay saad multiplication-ka u isticmaali lahayd itemska saad number lagu samayn lahayd ama automatic list item-ka waan soo aragnay automatic number-ka increment u samaynaya waxaan soo aragnay sidoo kale ID-ga iyo class-ka attributes-ka sida loogu daro custom text-ka waan aragnay dhammaan waxyaabahan badankooda qaar badan waan soo aragnay qaar badanna meynaan arag marka qaybay u qaybsan yihiin waa aad bay u badan tahay dhammaan waxaan isdultaagadan isdhaahno muuqaalkan iyo dhowr muuqaalo kalena kuma dhamayn karno marka adiga ayaa akhrisan doonaa mid kasta iyo qaabka loo isticmaalayo tusaale ahaan BG waa background xaggana waa visual formatting-kii tusaale ahaan position-kii PO baan iska isticmaalanay POS-na waad isticmaali kartaa waa kan S waa static A waa absolute waan soo aragnay top-ka waan soo aragnay waxaan soo aragnay top auto right-ka bottom-ka left-ga sidoo kale A haddaad raacisana waa auto ama automatic buu ka dhigi doonaa adiga ayaa markaa kan akhrisan doona waa aad buu badan yahay laakiin hadba intaad uga baahan tahay ayaad ka isticmaali doontaa okay marka intaas ayaan ku daynaynaa muuqaalka maanta ood ku mahadsantahay daawashadaada thank you